السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maleynayaa waa markii labaad ee aan la hadlay dadka af Soomaaliga ku hadla. Clip hore ayaan lahaa oo aan ka hadlayay kiniisadda waagi kiniisadda laga hadlayay Hargeysa ku taala. waxaan doonayaa inaan bulshada weydiiyo ama aan la wadaago arrimo iga yaabiyay. arrimaha iga yaabiyay waxa weeyaan iskuulkan abaarsa la yiraahdo ee ka furan Hargeysina waaxigeeda abaarsa ka furan. iskuulkani mabdii loo aas-aasay muxuu yahay ujeedadii loo aas-aasay wax walba hadaf baa laga leeyahay laga lahaa maxay tahay ninkan saxafiga ee aan taariikhda in far badan lagu hayo wuxuu yahay la yiraahdo Adrison Koba. ninkani iskuulka ma isaga mulkiila ka ah oo isaga le isagoo la og yahay inuu yahay nin la qabo oo xaasa luqada soo adagtayna adeegsado yiraahdo waa nin la qabo xaasa. ninkan la qabo ee liwaadiga ah isagoo ilaahay ninka dhigay doortay in la guursaday oo u doodaya jinsiga inuu jinsiga guursado gabadhina gabadha guursato ninkuna inuu guursado. waxa weey anagu dad muslimiin baanu nahay ka reer Soomaaliland ahaan waxaan la hadlayaa dadka reer Soomaaliland. ninkan inamadan yar is xambaaraya sawirada laga soo qaadayo waxa looga jeedaa maxay tahay maxaa iskuulka lagu faafiyaa waxyaabaha lagu dhigo ardayda markaad weydiiso waa waxyaabo lagu dhigo iskuulada kale laakiin maxaa u dheer la qarinaya waxa weeyaan waxyaabahaasi waa waxyaabaha aan isweydiiyay in fara badan saaxadan Soomaalida waan ka maqnaayo dhinaca Carabta oo baan ka hadleeyay waxay ka hadleeyeen iyo baan egeegay laakiin waxa aad moodaa reer Soomaaliland waxaan ka dhaqan inoo ahayn ka awow aynaan lahayn inay soo kordhayaan oo in afka inta la kala qaado carabka la sii daayo waxaan maqla jiray iyadoo ay yiraahdaan islaamuhu ama dadkii Soomaaliyeed muxuu afka la kala hayaa ma ayba carabkan siiqadan maxaa looga jeedaa carabkan la laalaadinayo bal niman yahow nin weyn oo afka kala qaado carabkiisii soo daayay macnaha uga jeeda waa maxay kale waa luuqad cidii garanaysa garanay laakiin anigu waa sheekada aan garan waayay marka Facebook-ga Soomaaliga samaystay ayaa waxaan arkayaa sawirro la soo dhigayo inamo waaweyn iyo rag waaweyn oo afka kala qaadaya iyo in yar la xambaarsan oo uu ninka gaalka ay ku dhex jiro iyo hablo fara badan oo reer Soomaaliland oo meesha dhigto isku dhex sawiray. okay maadu bixiyaa ninku waxaan arkayay xataa sawir oo isaga iyo Muuse bixi miyaa la isu geeyo dadka isu geeyay Facebook-ga ka shaqeystay dadkan Photoshop-ka ku sameeya ayaa isu geeyay waan isweydiiyay sawirku waa sawir original madaxweynaha laftigiisa la galay. waxaan weydiin lahaa bal xukuumadda Soomaaliland ninkan joogitaankiisa iskuulka u jooga waxyaabaha ay tahay waayo ninkani waa nin jinsiga u dooda macaruurta yar buu yiraahdaa iskuulsada mise ninku xiisad buu bixiyaa way iga su'aale waxaan leeyahay inamada ku dayanaya carabka kala qaadaya sharafku ma aha adigoo nin weyn inaad afka kala qaado wad carabkaaga siidaysa ceeb bay kugu tahay dhaqan Soomaaliyeedna ma ninka qabana carab may soo marin liwaadku quraankuna ma uu kuma sheegin ilaa qoom luudkii Ilaahay quraanka kaga sheekeynaya mooyaane wax carab soo maray ma ahayn. culimadu waxay dhahdaan faacilka iyo mafcuulka labadaba waa in buur laga tuuro la rajmiyo war arrintii sida ahay ee islaamku heerka ka joogay inuu ninka sameynaya intuu waliba cilaamsaday oo dunida kaga dhawaaqay oo uu yiri waxa weeyaan waa in la isguursado oo ninka guursado oo jinsi waliba jinsigiisa guursado inuu hablaheena isla soo sawiraa sharaf maaha. arrintan waxaan leeyahay dadka u danqada diinta ee culimada waa inay arrinta ka hadlaan sawiradaas haddaanay gaadhina waa in la gaarsiiyo sawirada ku jira Google-ka كل ما نادتك يقوم بعدين سوفيدي فان معها نلا قبوينا ثلاثة صورته حبلو فان معها ونجهز وحني هاي والله هاي نين كاس وحيابها ووجهه كل يدد أوجي ويشرانه إن سفي عن حقيقة الله تابته وحقيقة الله جه الله وحويا نكني وحو سمينا يا وأرين وين بمشي وشوجا waxa la og yahay oo sida la yaqaanaba qofka fikirkiisa uu aaminsan yahay inuu ku faafiyo dadka. aniga taqadan ahaan maanta markaan hadlayo ee aan doonayo cid inaan meel tago waxaan gaarsiinayaa fikirkayga aan xambaarsanahay anigu
kuna dadaalaya in aan ka midho dhaliyo iyo sidoo qofku fikirkaygan u qaadan lahaa kulle waxaan u madaynayaa Anderson Cooperna waa saasoo kale inuu dadka u sharixi doono liwaadku wuxuu yahay iyo sidii ugu qanacsan yahay marka waxa leeyahay fikradaas degdeg waa in laga hortago si degdeg aad iyo aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadasha waxaan u malaynayaa fariinteedii intaasay hay inaan ogaado cidii xog ka haysan waxaan leeyahay clipkaygan hoos baa igu soo qori doontaan ama message baa soo diri doontaan cidii xog ka haysa ninkani wuxuu meesha ka qabto iyo wuxuu bixiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa khayr ibroqan idin rajeenayaa